waxdad ban Soomaali anfici maayaan dhalinyarada soo kacayso ee wax barata ee jaamacadaha ka soo baxday codkooda inay ku ciil beelanaan jecel anigu hadda ma dhacaysa islaaya maadaama bulshada hadda badankooda isku khilaafsan yihiin wax la isku khilaafsan yahay wuxuu yahay horta sagaashameeyadii iyo wixii horta ka hore wixii dhacayeen ma sheegin laakiin hadda marka la joogo dawladda hadda hadday dhamaato xilka hadda la yiraahdo kala doorasho qof iyo cod dhacayso isma dhahayo tanda la aada wartandada maarta xana aadiyo tando annagu Soomaaliya dad walaala ehelaanahay geed hooskiisa ku heshii karnaa muwaadiniina wadanahay dalkaas naga dhacay raas Kaambooni iyo raas Caseer nin dal kale haysta ma nagu jira maalmihii ugu dambeeyay waxa si weyn baraha bulshada u haystay hadalka ku aadan khilaafka u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo waliba sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya taasi oo noqotay hadalhayntii ugu badnayd iyo waliba sidoo kale aragtida shacabka ee ku aadan in go'aanka uu qaatay Axmed Madoobe uusan ahayn mid sax ah misna dawladnimada Soomaaliya uu horseedi karo waxaana sidoo kale xildhibaanada labada qal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta kulankooda ay ku ansixiyeen in dalka uu aadayo doorasho qof iyo cod ah taasi oo laga gudbayo ama u muuqato in waqtigan la joogay aanan dib looga laaban kareynin doorashada ee dadban ama teendhada afisyooni taasi oo u muuqata waqtigan la joogay in hadalhaynta ugu weyn ee hadda ka taagan ay noqon karto Axmed Madoobe ayaa go'aan adag ku taagan oo ah inuu qabanayo doorashada oo markaasi ee dadban laga soo gudbay halka dawladda Soomaaliya ay ku taagan tahay in aanan dalkan markaasi laga qabanaynin doorasho dadban mar dambe aysan ka dhacaynin haddaba sidee ayay ugu aragti dhiibteen shacabweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ee Soomaaliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحويا خلفنا ما يديبته وحان ليها أنو صوماليا وصوماليا راس كامبوني راس عسير وولالو وضد وضد شيء ودل كان أسوهل جني ودل كان أصود مني ودل كان عيدا كأصوهين وبرسماتك أن أصو مرني وحان ما أنت لنا Soomaali mida doorasho hala wax dadban sideedaba hana laga dhaafo wax dadban dadban waa ku soo daalay laga soo bilaabo maarta Ali Mahdi laga soo bilaabo ilaa maarta Cabdiqaasim Cabdullaahi Yuusuf intii madaxweynuhu ka soo dambeysay wax dadban aan ku soo jirnay waxdad ban Soomaali anfici maayaan dhalinyarada soo kacayso ee wax barata ee jaamacadaha ka soo baxday codkooda inay ku ciil beelanaan jecel anigu horta ta waxaan kale ahay anu qof doorasho qof iyo coda horta waxyaalaha ku fiican tahay waxa kamid ah qofka codkiisu dhiibanaya waa qofkan wixii qofka u qaban karo dhiibanaya marka laga gudbo nidaamka qabiiliga ee doorasho qof iyo coda markay noqon samcinaha hebel in adeerkay baan u codeynaya ma macnaha waxaan u codeynaya waxa weeye qofkan karti iyo dadaal iyo wax buu leeyahay wax buu qaban karaa qofkaasaan u codeynaya muhiimad weey waana shacab baa codeynaya horta taas ku fiican tahay in laga gudbana waan rajeynayaa aad baan soo bogaadinaya waliba oo Xasan Sheekh Maxamed lagu raaco exactly waa la oran karaa waayo waxay ka cabsanayaan haday doorashadii shacab isku bedesho oo qof iyo cod isku bedesho waxa la halka ka cad inay hawada ka baxayaan iyagu marka dantooda ilaashanayaan iyo danaha guud ee dadka cadawga ay la macaamilayaan ay ilaashanayaan ma aha danayn ay shacabka u danaynayaan haday dadka shacabka u danaynayaan doorashada qof iyo codka ay cadaalad ee saxda baa loo gudbi lahaa horta waa dhawahay markuu ugu horeyso walaalkayga qaaliga markaan ka hadlo arrimahaasi horta waxaan leeyahay qof iyo cod horta oo intaas dhici weysay hadda ma dhacaysa islaaya maadaama bulshada hadda badankooda isku khilaafsan yihiin wax la isku khilaafsan yahay wuxuu yahay horta sagaashameeyadii iyo wixii horta ka hore wixii dhacayeen ma sheegin laakiin hadda marka la joogo dawladda hadda hadday dhamaato xilka hadda la yiraahdo kala doorasho qof iyo cod dhacayso isma dhahayo suurtagali kartaa maxaa yeelay hadda xaalad wuxuu ku jira tii ugu xumeyd maadaama dhankii amniga hadii la dhigi lahaa dhankii iyo siyaasadda hadii la dhigi lahaa oo maamulada isku khilaafsan wax baa la bedelaa wax baa la saaraa dhankii iyo markaysaa madaxdana aad isku khilaafsan yihiin marka waxaas leeyahay horta markii khilaafkaas la xaliyo bulshadiina la qanciyo
bulshada horta waxay u baahan tahay in la qanciyo qanciiskaasna maxaa lagu qanci karaa in horta ayaga horta loola fadhiisto qof iyo cod dadka loola sameynaa ayaga waa haddii ayagii la leeyahay ma loola sameynaayo oo ma arkaysaa waa la dayaca oo wixiina waa lagu sameynaa waa lagu tumanaa dadkii hadda waxaa arkaysaa qaar badan oo guryaha laga barakiciyey qaar badan oo baahi u dhimanayaan qaar badan oo ma arkaysaa caafimaad dari u dhimanaya goobihii ganacsiga inay qudulduruuriga zaa'id inay yihiin goobaha caafimaadkana inay qaali yihiin oo aanan dadka la geyn karin hadda dadka la geeyna intaas bixinaynina waa dhiminaysa in la dhahayo maxamed maxamuud cabdi Soomaali Live TV muqdisho Soomaaliya